Dabal TV haka fogaan xogogaal dhab ah iyo xaqiiqooyin sugan kulanti wacan oo wanaagsan meel kastoo aad dunida ka joogtaanba waana mar kale iyo Dabal TV waxaan had iyo jeer idinku soo tabinaa xaaladaha markaasi ka aloosan geyga Soomaaliyeed iyo waliba gaar ahaan waxaanu diiradda saarnaa dhanka deegaanada Khaatume State of Somalia haddii allaha awoodda leh ogolaado waxaynu toddobaadkan ku eegi doonaa maxaa kalifay horjoogaha maamul goboleedka Puntland inuu meel walba isla soo taago sheegashada deegaanada Khaatume State of Somalia maxaase ka run ah maxaase ka been ah haddaba daawadayaal barnaamijkeena oo aan ugu magac darnay adigoon seexanin hariyoon waxaynu ku eegi doonaa horjoogaha maamul goboleedka Puntland oo isagu waayadan dambe ka caado yeeshay indhaadayga iyo ku hadaaqida sheegashada deegaanada maamul goboleedka Khaatume State of Somalia iyo shacabkiisaba isla horjoogaha maamul goboleedka Puntland waxaa la qaatay intii uu ku sugnaa gudaha dalka Soomaaliya iyo deegaanada uu ka arrimiyo sababtoo ah wuxuu u muuqanayay mid si weyn u tixgelinaya baaqyadii ay beesha caalamku ka soo saartay deegaanada Khaatume State of Somalia asaatee shacab badan oo Soomaaliyeed waxaa fajacay amankaa ku noqotay waxyaabihii afkiisa ka soo butaacayay siiba maalmihii uu ku sugnaa waddankan Ingiriiska waxaase isweydiin mudan maxaa ku keenay isbeddelka iyo inuu mar kale soo celiyo sheegashadii shacabweynaha Khaatume State of Somalia ee iyagu waa hore ka tashaday maamulka Puntland waxaanta talafloomo waxay tamar lahaayeen nima meel ku taageero hadda waynu wada toosnay hurdadaynu tumanayno waxba wayna tarbiy waxaan kalena naga buuxsan tafaraaruq baa dhacay ilaa wadaan taada cidu kula tismaynayno khaatumada lagu toosi daawadayaal dhegaystayaal waxaan xogo fara badan ku helnay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas intii uu ku sugnaa waddanka Ingiriiska wuxuu kulamo badan la yeeshay jaaliyadiisa reer Puntland ee ku dhaqan waddankan Ingiriiska waxaanay si khaldan ugu gubaabiyeen marna inaanu ka tanaasulin sheegashada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo inuu dhaqaale fara badan ku bixiyo kala furfurka isku dirka iyo inuu mar walba si tuuga ah horgalada ugu soo diro meelo ka mid ah deegaanada Khaatume State of Somalia daawadayaal horaa loo yidhi aftaboolan waa dahabe Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo aan oran karo shakhsi ahaan ma aha dadka markoodii horeba u dhashay aftahanimada iyo ka rusheegidda dhacdooyinka hase ahaatee waxaynu oran karnaa waa iska ciyaalka xaafadda balila daawada aflagaadada meelka dhaca quursiga iyo been abuurka uu ku samaynayo shacabka reer Khaatumo ee iyagu ka tashaday maamulka Maxamuud Saleebaan fiiri waakayo ama xaqada maanta diyaar waxa uu naxdina diyaar u tahay dadka Sool Sanaag iyo Cayn afka laga qaato la yiraahdo soo dadka tabiibu suusmi for themselves dadka ay soo hadlaan soo wax wanaagsan ma waxaan rabaa dadka booca jooga kuwa xudun jooga kuwa tagax jooga kuwa lascaana jooga inay wada wax rabaan maanta haddaba horaa loo yidhi nin waalan tulkiis baa u miyir qabee bal ummad yahay Soomaaliyeed u fiirsada mar kale iyo been abuurka wiilkan ciyaalka xaafadda ah isagoo ku afgobaadsanaya dastuurka gacan ku rimiska ah ee Puntland dastuurka anu aan ku dhaartay ee Puntland leeyahay waxa ku qoran doorkaan ku dhaartay anu oo markii madaxweyne noqday lagu dhaariyay waxa ku qoran 8 gobol oo Puntland ah ku qoran
يا كل قدام بيقرطفوي كم ورا صوت قدام بيدستوك سديد دا جول باكو قرا سديد دا سايا ku dhaartay سديد دا ay Puntland tahay sool sanaagiya cayn sida garowe Puntland uga tirsan tahay sida qarno Puntland uga tirsan tahay sida boosaaso Puntland uga tirsan tahay Puntland yihiin ha ku seeyeen khayrkaaga qoonka tashada iyo ninaantaada kula qabin qadaf laga marayaad sheeye ha ku seeyeen khayrkaaga qoonka tashada iyo ninaantaada kula qabin qadaf laga marayaad sheeye daawadayaal Soomaalidu waxay ku mahmahdaa hadal iyo hilbaba kala qalan dastuurkan uu sheeganayo inuusan ahayn mid xalaal ah waxay ka tiri aqoon-yahanada reer Puntland ee iyadu dibadda soo dhigtay dulmiga xaqdarrada iyo cadaalad darrada hareysay maamul goboleedka Puntland marka loo tartamayo Puntland ma cid gooniba iska leh mise waa loo sameeyay dastuurahan maya dastuurka marka uu qoray horta dastuurka Puntland waa mid madaxweynihii waxaan u maleynayaa dastuurka marka la qoray waqtiga cad haystay bay cadda waxbuu ka sii bedelay farol waxbuu ka bedelay ninka doon waxbuu ka bedelay hadda xataa waxa maqlay Cabdiwali inuu ku tali jiro inuu wax kale ka sii bedesho waa wax qoladii la doono afeen laakiin 60 ka kursi ee Puntland xildhibaanada ah 13 kursi Maxamed Salmaan baa hadda u taliya oo cadaan ah daawadayaal Soomaalidu waxay ku mahmahdaa nin daar quraarada ah ku jira dhagaxyimo tuurtuureen markaan Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ku tilmaamayay oo iska ciyaalka xaafadda waxaan magacaas ugu sheegay bal ila dhageysta odaygan oo daaha ka fayday dhibaatada ay leedahay inuu qofku iska hadlo isna soo dhaafiyo wixii maskaxdiisa ku soo dhaca isagoon marna xisaabta ku darsanin berrito maxaa kaaga soo noqon kara dhammaan waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed ee reer Puntland inaan tilmaan yar siiyo waxaan rabaa madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland dadka Soomaaliyeed markuu doonayay xilka wuxuu u sheegay oo idaacadaha oo dhan yaala Puntland inay tahay gabar qurux badan oo gaari ah oo maalin walba nin alkooleysta ah guursado arrintaasina ayaan darro ay tahay gabar gaari oo qurux badan aad u fiican laakiin nasiib darradeedu waxa weeye maalin walba alkooleysta guursataa marka waxaan leeyahay Puntland alkooleysta dambe ha guursan haddaba daawadayaal horaa loo yidhi hadalna run baa lagu caddeeyaa ilkana rumay waxaan jeclahay inaan hortiina keeno go'aamadii ay soo saareen shacabweynaha reer Khaatumo intay gudaha iyo dibadda isaga yimaadeen si ay u caddeeyaan mowqifkooda siyaasadeed iyo kooda mustaqbalkaba marti sharafta mutada kuwaad انت وحكم السلام يا سلامة اسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كدي مركي هي بوين كبيرها الصوم سنة عين كل مقالة الطليح يسوق غيبيين وديو كالدوضة كان عربية هرمارينتا مدينتا نبضينتا هي آية كتلنتا ديقامة بيلها الصوم سنة عين waxay soo saareen gudiyadaasi oo ka koobnaa 345 ergey oo markaas madasha joogtay go'aamada soo socda waxay ka doodeen 3 qodob oo qodobka ugu horeeya waxa talooyinka ka talinta qodobka labaad oo ahaa talooyinka looga baahan yahay madasha midaynta iyo nabadeynta iyo qodobka saddexaad oo ahaa arrimaha bulshada iyo horumarinta waxaana ay anoo halkan ka soo jeedinaya qodob ay soo gudbiyeen oo ay gudoomiyeen
bisha 10keedii oo 345 ergey rasmiga ah isku raaceen amuuraha soo socda dhinaca talooyinka ka talinta in shirka Khaatumo labo lagu yagleelo maamul aynu leenahay oo cadaalad ku salaysan beelaha Dagasool iyo Sanaag in maalintaas wixii ka dambeeya ay gebi ahaanba aanay ka tirsanayn kana tirsanaan doonin labada maamul ee dhinacyada ka xiga inuu halkaas ku laalmay wax alla wixii shuruuc iyo axdiya ahaa ayna kala dhexeeyey labadaas hakuseegin khayrkaaga qoonka tashada iyo ninaantaada kula qabin qadaf laga marayaad sheeye hakuseegin khayrkaaga qoonka tashada iyo ninaantaada kula qabin qadaf laga marayaad sheeye horaan loo yidhi adduunyada ninkii joogow maxaa aragti kuu laabane sheegashada shacab waa hore ka tashaday go'aamo cadcadna ka soo saaray inaysan marna ka mid ahayn maamulkii laysku odhan jiray Puntland misana arrinkaasi muxuu ka yidhi madaxweynaha maamul goboleedka Khaatumo State of Somalia maalin dhaweyto waa maqlay anigu maba dhageysanaane maamulka Puntland ninka madaxda ka ah oo leh odayaashina anay nala joogan dastuurka aanu annagu leenahay ee Puntlandna waxaad moodaa waxyi inuu u yahay Puntland dastuurkiisana ee amraya inaan Sool iyo Sanaag iyo Cayn aan u ogolaan inay iyo ku tashadaan waxyaalaha kuugu yaabadan ninku hadduu mid jaahila yahay oo hadda tuulada soo galay waxbaad booran kartaa deekana waxba uma garan laakiin nin la leeyahay waa nin mutacallim oo waddankan aynu joogno Mareykanka tawadayaal haddaba dib ugu noqon mayno wax ka sheega hogaamiyahan iska hadlay ee isagu gacanta ku haysta kooxaha ciidanka caloosha balse ismoodsiiyey inuu dhulbahantay gacanta ku hayo mudane adigoon seexanin harriyoone balaan idinku leexiyo afhayeenka jaaliyadda Khaatumo State of Somalia ee Imaaraadka Carabta mudane Cabdirashiid Diiriye Kadeed wuxuu ka yidhi qolada maxjarka lagu naaxinayo odayaasha garawa jooga ama nimanka mas'uuliyadda sheegay garawa jooga war laas calaamad baa laydinkaga baahan yahay war xutun baa laydinkaga baahan yahay war maskaxdiina booca baa laydinkaga baahan yahay war laydinkama baahna garowe war nimanka waddankoodii way isku koobeen laamigaa dheer intuu marayo ayay doonayeen inay dhistaan nimankana ay ka dhigtaan muraayada tusoo caalamka shacbi Khaatumo waa ka garoobay maamul buu ka samaystay ama saaxiib ha joogo ama saaxiib ha joogo ama ha joogo bankiga ha joogo maalin maalmaha ahayn oo degdega dhulkoodu waa ku soo noqonayaan iyagana maanta shacbiga kalsoonida ay u hayeen kuwa halkaa garowe fadhiya waa lumiyeen ee turkadka ku soo noqdaan toobadka inuu cajisna u weydiisteen yaan leeyahay nimanka garowe joogana wax allaale waxay u hayaan shacbiga Khaatumo ma jirto waxa weeye Cabdiweligaas horta waa ninkaas maamulka garowe ayuu maanta madax u yahay maamulka Khaatumo madax uma aha maamulka Khaatumo ummadda shacabka Khaatumo waxay isku tahay Professor Ali Khalid Balagh ku-xigeenkiisa ra'iisul baarlamaankiisa intaasay wax ka go'daan shacbiga Khaatumo ama gudaha jooga ama dawladda ha jooga intaasay wax ka go'daan ninkan madaxweynaha Puntland ahna waxaan leeyahay war haddii maanta adduunku u gartay in intii israaci kartaba ay israacdo oo kuwii hore wada jiray Puntland la baxay ay kala tageen oo kala dhoobeen oo maanta adduunku uu xal mooday in 18 gobol intii israaci karta ay israacdo maxaa loogu diidayaa daawadayaal saaxiibayaal bal u fiirsada kooxdan yar ee horgalada ah ee ku xaraysan maxjarka garowe waxay u badan yihiin raggii bardaha Khaatumo ilaahay dartiisa ugu dhaartay inay shacabkooda iyo maamulkooda ay daacad u noqon doonaan haddaba waxaa isweydiin mudan
maxaa keenay inay dhaartii ilaahay ka baxaan? maxaa keenay inay dib ugu laabtaan maamulka waqooyi bari ee isagu awalba bixiyey laascaanood? ma markii hore ayay waalnaayeen mise hadda oo ay maxjarkii dib ugu laabteen? saaxiibayaal, soomaalidu waxay ku mahmahdaa run sheeg waa ceeb sheege. aragti ahaan waxaan qabaa kooxdan yar ee farakutiriska ahi, inkastoo aan la isbarbar dhigi karin qof iyo qadiyad, misena waxaa isaga khaldamay qof ay isqabteen iyo qadiyad shacab, waana tan keentay inay ku ballan furaan shacabka ay ilaahay hortiis ugu dhaarteen. tan kale, cudurrada sabankani wato waxaa ka mid ah kooxdan yar ee horgalada ah iyo in ay wax ku shubteen oo dibadaha sacabka uga tuma. way ogol yihiin inay awr hayin ah u noqdaan maamulada Garowe iyo Hargeysa. way ogol yihiin in loo isticmaalo muraayad caalamka la tuso markii dan laga leeyahay. way ogol yihiin inay aqal kale ka shaqeeyaan, koodana ay iska weynaysiiyaan, har iyo habeenna ay caayaan, iyagoo ku raalli gelinaya maamulada ay awrkiraalaha u yihiin. haddaba muxuu ka yidhi kooxahaasi awrkiraalayaasha ah madaxweynaha maamul goboleedka Khaatume State of Somalia mudane Professor Cali Khaliif Galeed? waxa ugu weyn ay sameynayaan bilmithaal waxaa magaalada la yiraahdo Garowe jooga niman odayaal ah oo dhulka u dhashay oo ismaamise dad shacab ah, qaar ismana waa ku jiraan, qaar maamulo bunta Somaliland ka shaqeyn jiray waa ku jiraan, kuwo odayaal uun marba wixii cimaamad maaragtay loo duubaabo iska dhaqaaqaya dee odayga lagu sheegaya. laakiin waxa yaab la calow arrinta marka loo eego maamulada kale ama states kale gobolada kale la dhisayo, idina wax badan kama weydiiso nin iyo laba la isim baanu nahay, isim waa tahay, laakiin macnaheedu ma aha isim iyo laba yaa loo joojinayaa hawsha ummaddu ay iyaku ka go'aansadeen oo ay meel uga soo wada jeesteen oo maamul ku dhisteen oo qadiyadoodu siday tahay ummadeedu raalli ay kaga tahay. nin iyo laba iyo saddex marna xagga u sii seegeynaya marna xagga u sii seegeynaya waxa hawsha loogu joojinaya maaha, laakiin waa xojooyinkana haysta ee ugu badan ee ay nagu hayso Puntland. daawadayaal dhegaystayaal, geed waliba in gubtaa way hoos taale. cabdiweli maxamed cali gaas isaga oo la daala dhacaya dhibaatooyinka gudihiisa sida mushaar la'aanta ciidamadiisa, malooshyooyinka ay isku haybta hoose yihiin ee uu ku soo urursaday duleedka Garowe, iyo weliba shacabkiisii u haweynaa oo haatan u arkay mid ay ku hungoobeen, misena isagoo ay gudihiisa waxaasi oo dogobyaahi ka holcayaan. haddana wuxuu mar kale u gacan haadiyey isimada dhaqanka ah ee maamul goboleedka Khaatume State of Somalia ee iyagu iska diiday gunnimada iyo inay gacmaha hoorsadaan wiil asaagooda. waxaanuu iclaamiyey shirku sheeg uu yidhi gogashiisa Boosaaso ayaan dhigay, waxaanu furmi doonaa bisha January ee sanadka soo socda. waxaanu isleeyahay dabin u dhigo isimada xalaasha ah ee aan isbadbedelin balse ku adag khaatumanimada iyo dhaartii ay ilaahay u galeen. wiilkan ciyaalka xaafadda ahi markii uu yaqiinsaday inaysan marna gacantiisa soo geli doonin isimadaasi xalaasha ah ee khaatumaysani, isagoo iska dhigdhigaya adeerkiis Faroole, wuxuu garoomada deegaanadiisa dhigay warqad uu leeyahay isimadaasi kama soo degi karaan garoomada Puntland, balse riyadaasi waxaa beeniyey meeshana ka saaray. gayiga dayuuradaha ee Ismaaciil Mire International Airport ee magaalada Buuhoodle ayaa waxaa maanta ka soo degay wafdi ballaaran oo hogaaminayay garaadka guud ee deegaanada SSC Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac
iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka Khaatumo Cabdalle Maxamuud Cali Cagalowle waxaana wafdidani qayb ka ahaa Suldaan Saciid Cismaan Cali iyo sidoo kale Garaad Mashqare dhinaca kale waxa iyaguna la socday mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Khaatumo oo kamid ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada Cadde Faarax iyo sidoo kale xubno kale waxaana wafdidani si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Ismaaciil Mire International Airport qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Buuhoodle oo iyagu saaka subaxnimadkii u ambabaxay garoonkaasi diyaaradaha si ay u soo dhaweeyaan isla markaana uga qayb qaataan wafdida Faarax iyo sidoo kale xubno kale waxaana wafdidani si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Ismaaciil Mire International Airport qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Buuhoodle oo iyagu saaka subaxnimadkii u ambabaxay garoonkaasi diyaaradaha si ay u soo dhaweeyaan isla markaana uga qayb qaataan wafdidan culus ee lagu soo dhaweynayo garoonka magaalada Buuhoodle. daawadayaal halka aad nagala socoteen waa Dambal TV qaybtiisa wadanka Ingiriiska waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Ismaaciil Ibraahim Ducaale Aftaag waxaanuna isku sii macasalaameyn doonaa gabaygan oo isagu si toos ah ugu socda kuwa loo bixiyay ciidanka caloosha ee iyagu ka caado dhigtay inay har iyo habeen warbaahinta ka caayaan ka maagaan ka canjarafeeyaan madaxda reer Khaatumo iyo shacabkoodaba anigoo sariirta xaaladaha wadankii ka jira aan markaan mataqaanaa Dhambaal iga yimaadeen wadankii oo aan kusoo baraarugay kusoo toosay baan tixdaa gabayga tiriyay dhageysi wanaagsan hada gabaygaan igoo dhigo hadalba soo gaabshay ayuu xalay hurdada igu yimi haatu fulalayaadhe hambal iyo salaam buu yidhi hooda iskalaho markaan hoosu eegaan akhriyey ayay hibatay laabtii ee hantii waxay lahaayeen kuwa cadow hareereeyay hableheenniba soo qoray iyo hooyo dhaawaca oo hareer ahayntaan eegay ayaan ifay gogoshiyo habaabti kabihii intaan soo hankoobsado heeseeyey faraskii taleex loogaha jiray heeseeyey faraskii taleex loogaha jirado heegan gelinay hawdiyo nugaal haybna lagu yeedh xaaladdu yaa dhulbahanta bay maanta taagan tahay oo dhiig leh heegan gelinay hawdiyo nugaal haybna lagu yeedhiye hubka rida dagaalkan wax badan hooda ku lahayne hubkana rida dagaalkan wax badan hooda ku lahayne hagoog xumaha litiyo ka taga haba calaalaada hagoog xumaha litiyo ka taga haba calaalaada horgalka iyo huunada galbeed hola caleefsiiyo hilbaadiriira hawayda timi ku hakan maysooni afarta hadiyo ugaan dhigay halkoodii dhee hotada halkii aan ku wadayaanan hayweridhe ilaahu horseedkaan dirsaday hubanti keenayo reerka hayaankiitu hilinka moodayo hanfigiyo kulaylahaa intuu hore u dhaafayo intuu hawdka geeda halayo hadhaca gaadhayo hurdow iga xaaraan inaan hoyga jiibsado hadhsanna maayo waa xorey waxaan habaynay ila cabaxayo intuu hadafku ii muuqdo heegada daaysa intay harabiyeynayso gela hoogaysani intuu ku haqabeelayo hogobada caleentale intaan hanadku maalayo hurdow iga xaaraan inaan hoyga jiibsado hadhsanna maayo waa xornimo waxaan habaynay hadhsanna mayno waa xornimo waxaan habaynaaye afarta hadiyo ugaandhigay halkoodii dhe hotada halkii aan guriday aanan haywelidhayn dowladaha wada sahadsaday ee heerka sare gaadhay ee maantaba dayaxa haybsaday ee degaya hoostiisa hallaynama dheere midnimo ayay hodan ku gaadheen ee inaguna haliyey kaca ayaa wada huruufnado haybiyo qabiil
ووحا هوسينو ديغدو ووحاين هيلي وينا ديليتني يهابين الله إنا مديراي مدما يودنكو قارينا إنا قنا هليي كعاه أيا وده رفنادو هيبي وقبيل ووحا هوسينو ديغدو ووحاين هيلي وينا ديليتني يهابين وحبا أرارتو ييلاها تيرا وحان كسوهو بشي كوهم قريقو لغا قادي قعنت اللوهات شي إيهو ستو حين يوهالان كوسي تارتو كوهم قريقو لغا قادي قعنت اللوهات شي إيهو ستو حين يوهالان كوسي تارتو حركم هالنتين عسور دا ووهبيني ووهبسين ده القيله iyo loba lagu hilmaamaado harab buuxda waa inaad u dheer hoos u gelisaaye hambashadan alkaaqaadka aad u hanqaltaagaysid hamuunka ama biinayso iyo gaajaan hadhinoo hadaan daloosha iyo godbaa ku hadowdiilanoo hadiim aadan garanaynin ayay hoos ku wadataaye alla kugu habboona inaad ka hubsata meeshaaye الله كوها براينات كوبسة مش